maamulka degmada wadajir ee gobolka Banaadir oo uu horkacaya gudoomiyaha degmadaasi mudane Axmed Cabdulla Afrax ayaa kulan dhiirigelin xarunta degmada kula qaatay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan caruurta maqalka naafada ka ah kuwaas oo wax ku barta iskuul ku yaala degmadaasi. Kulankani dhiirigelinta waxaa goobjoog ka ahaa waalidiin, maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Qaar ka mid ah waalidiinta kulankaasi goobjoog ka ahaa ayaa uga mahadceliyay gudoomiyaha degmada dhiirigelinta iyo taageerida uu sameynayo dadka baahiyaha gaarka qaba, isagoo hore u booqday qaar ka mid ah xarumaha ay wax ku bartaan ardayda maqalka la. waxaan rabnaa inaa ilmaha oo dhagoolayaalka oo masaakiinta ah inay wax noo bartaan rabnaa waalidiintooda nahay meel kasto aan joogno in ilmaheen wax noo bartaan aan jecelnahay. Gudoomiyaha degmada wadajir ee gobolka Banaadir mudane Axmed Cabdulla Afrax ayaa tilmaamay in maamulkiisa ay ka go'an tahay taageerida dadka baahiyaha gaarka qaba gaar ahaan caruurta, isagoo sheegay in uu booqan doono goobaha ay degmada kaga nool yihiin. farxad ay noo tahay inaad maanta na soo booqateen ood noo timideen halkan oo ahayd xaruntii degmada ah nagu soo booqateen. runtii waxaa la yidhi saansaan ku gud saantii aan xafiiskiina iyo iskuulkiina aan ku soo booqannay inaad idinkuna noogu abaalguddaan inaad nagu soo booqataan halkan waa ka mahad celinaynaa. soo dhowaada, wakhtigu waa iska goor gaaban, aadaa idin jecelna. waxaan ku faraxsannahay sida aad waxbarashadu ugu dadaasheen, sida aad u dadaalaysaan ood waxbarashada iyo mustaqbalkiina aad u hiigsanaysiin. waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad dadaalkaas sii waddiin haddii ilaa yidhahdo. dabcan ilaahay caadilka ahaa haddii uu dhigaha idinka tiray oo dhigihii aadan lahaynina, waxaan hubnaa meelo badan uu idinkugu beddelay, nicmooyin badan ayuu idinkugu beddelay oo aad dadka dhigaha le aysan haysanaad haysataan. aad iyo aadaan marka runtii idinkugu dhiirigelinaynaa inaad ka faa'iidaysataan maskaxdaas iyo caqligaa tirada badan een idinku aragnay aan runtii aan dareennay in aad dheertihiin dadka kale. markii aan intaas ka soo gudbo, waxaan rabaa inaan baaq ku aadan baahiyaha iskuulkan aan u marsiiyo dadka runtii daawo doono barnaamijkan amba arki doono. iskuulkan oo ku yaallo degmada Wadajir maalin hore ayaan booqday. waxaan kula kulmay soo dhoweyn aad iyo aad u sarrayso iyo farxad, ilmo yaryar, dhalinyaro yaryar oo aad u faraxsan, waxbarashada aad ugu fiican, meel fiican ay u marayso inay si fiican ula qabsadaan waxbarashadii ay u baahnaayeen oo runtii ka tarjumaysa duruuftooda la soconaysay. sidoo kale waxaan soo arkay inay baahi badan ay ka jirto halkaas oo aysan u dhammaystirmi karin waxa ay hiigsanayaan, aysan heli karin. waxay mudnaayeen inay helaan waxbarasho ka tarjumaysa duruuftooda oo ah midday u baahan yihiin. waxaan ku soo arkay iskuulka macallimiinta oo ku yar, waxyaabaha loo adeegsado waxbarashadoo ku yar, duruufo kala duwan oo maamulka ii sheegeen iyo macallimiintii aan kula kulmo meesha iyo ardaydaba. waxaan jeclaa runtii inaan mar kale aan arko oo aan baahidooda aan la wadaago dadka Soomaaliyeed caawi karo.